qalbigu wuxuu uu jecel yahay in uu helo farxad joogto ah dadkoo idinna waa ay raadiyaan oo waxay u dadaalaan sida ay ku heli lahaayeen waana lagu kala duwan yahay raadinteeda waxa ay leedahay hal magac oo waxaa la yiraahdaa farxad balse waxa aan ku kala duwannahay tilmaamteeda oo midba si ay u aaminsan yahay waxaan raadiyey muddo badan inaan helo micnaha dhabta ee ku saleysan farxaddu balse qof kasta waxa uu ii sheegay aragti ka duwan midda uu saaxiibkiisii aaminsan yahay farxaddu ma inaad heshaa guri aad u qurxoon iyo gaari mise waa inaad heshaa shaqo mushaar kugu filan leh ma inaad u dalxiis tagtaa meelaha aadka u quruxda badan dunida mise waa inaad heshaa jagada aad ku hamin jirtay weligaaga dadka ugu dhow tilmaanta farxadda waxay yiraahdaan waa inaad ku farxdaa inta aad haysato iyo waxyaabaha uu eebbe kugu deeqay ee uusan khayrkaaga haysan haddaba dadka raadiyey farxadda waxaa ka mid ahaa fanaan ahaana weriye u dhashay dalka Morocco marka uu ka hadlayay raadintiisii farxadda wuxuu uu yiri maadaama uu magacaygu tilmaamayo farxad oo uu yahay Saciid waxaan raadinayaa inaan helo farxadda sida uu magacaygu yahay waxaana farxadda helay aniga oo jira 32 jir ah gurigeena waxaa u dhawaa idaacad waxaana gali jiray stuudiyoga idaacadda anigoo bilaabaya inaan ka qayb qaato barnaamijyada carruurta 16 sano markaan jiray waxaan ku hamin jiray inaan xaqiijiyo laba shay oo ay ku hamiyaan dhalinyarada badankooda waa caannimo iyo taajirnimo waxaan u malayn jiray in qofkii labadaas isku haysta uu farxadana haysto 17 sano markaan jiray waxaan ahaa fanaan heesa garaacana muusikada waxaan isla heesi jirnay saaxiibkay oo markaas fanaan caan ahaa waxaan ku biray kooxda waddanka ee Morocco anigoo la heesi jiray fanaaniinta ugu caansan ee waddanka sida Cabdiwahaab Dakaaki Cabdilxaliim Xaafid kuwaas oo noqday markii dambe saaxiibadayda qaaliga ah isla waqtigaasna waxaan ka qayb qaadan jiray kooxda jilayaasha ee wadaniga ee idaacadaha ilaa aan kaalin weyn ku yeesho booskaas kadib waxaan bilaabay inaan diyaariyo barnaamijyada idaacadeed iyo kuwa TV-ba barnaamijyadeedu waxa ay noqdeen kuwo ugu caansan uuna taageerida badan bulshada dhexdeeda intaas waxa ay dheer waxaan soo jeedin jiray wararka idaacadda TV-ga iyo barnaamijyada kaleba waxaasoo idil waxaan u galay raadin farxadeed oo kaliya waxaan waaye farxadii dhabta ahayd saaxiibadayda dhammaan ma haysan farxad oo mid walba waxa uu ka sheeganayaa dhibaatooyin kala duwan marka aan fiiriyana aniga ayaa farxadda ugu dhow waayo qaarkood murugo darteed ayaa wax la cuni la'yihiin qaarna guurkii ayaa murugo ka hor istaagtay anigase intaba waan uga duwanahay waayo wax waan cunayay waana guursaday dadka waxa ay u maleynayeen inaan faraxsanahay oo aan haysto farxad maadaama aan lahaa magac maal iyo sharaf intaba maalin maalmaha ka mid ah ayaa wariye waraysi ila yeelanaya i weydiiyey maadaama magacaagu uu Saciid yahay ma tahay qof faraxsan dhab ahaan oo ma isleeyihiin magacaada iyo noloshaada waxaan ugu jawaabay magacayga wuxuu ka kooban yahay Saciid wali waxaan ku jiraa saddexda hore oo ah Sacyi oo raadin hadii la turjumo ay tahay waxaan baadi koob ugu jira xarafka dambe oo ah D si nolosheeda u dhameystiranto xilliga aan soo helo macnaha ayaan kula soo socodsiin doonaa kuna sheegi doonaa in nolosheedu dhameystiran tahay xirfadeyda iyo asxaabteydaba maadaama aanan weli ka helin ama aanan ka dareemin farxadda dhabta waa inaan raadiyaa farxadda aniga u adeegsanaya barnaamijteyda idaacadeed waxaan u sameeyay barnaamij gaar ah oo aan ku raadinayo farxad la yahay waxaana la kulmay qoraayahano kabayaa anigoo raadinaya farxadda micnaheeda dhabta ah ma helin macnaha dhabta ee farxadda wali barnaamij ayaan idaacadda ugu sameeyay oo aan ku raadinayo farxadda la yahay wax macna ah uma aanan helin waxaan bilaabay barnaamij toos ah oo ay dadku uga qayb qaadanayaan taleefanada si aan u helo macnaha farxadda kadib markaan micno u waayay ayaan ku iri naftayda haddaba aaway dadka faraxsan xakaysi ku nool yihiin waan baxay oo waxaan tagay Yurub anigoo farxad raadinaya balse murugadii ayaa igu sii siyaaday waxaan u soo laabtay dalkaygii waxaan bilaabay shaqadeydii ahayd alifaadda haysaha iyo warinimadeydii maadaama aanan haysan wax kale oo aan ku bedesho
waxaa ii soo baxday in wax farxad la yidhaahdo aysan adduunka ka jirin. waxaan isweydiiyey, ma waxaa loo nool yahay in la cuno la cabo innaga oo geeri sugayna? haddii ay saas tahay maan geerida soo horumarsado si aan u helo farxadda. waxaan go'aansaday inaan isdilo si aan farxad u helo. waan isku dayey, balse ilaahay mahaddii iskudayigayga ayaa fashilmay. waxaa gacanteedii soo galay buug ku qornaa luqadda Faransiiska oo la yidhaahdo Suicide, oo haddii la turjumo ay tahay dadka isdila, kaas oo ka hadlaya dadka isdilay iyo sababaha ay isku dileen. waxaan arkay in dadkaas aan isku mid nahay, mushkiladii ay isku dileenna ay ani hadda i haysato. aniga oo ay xaaladdeedu adag tahay, waxaa ii yimid walaalkayga oo isa soo beddelay. wuxuuna soo noqday qof ku adag diintiisii, wuxuuna dadaal ku bixiyey sidii aan ugu soo bixi lahaa waxa aan ku jiro. waxa uu ii sheegay in farxaddu ay ku jirto waxa la ii abuuray oo aan ku dhaqmo. waxaan arkay in aan aqoon badan aanan u lahayn marka laga reebo diinta aan u nisba sheegto oo aan waxba ka aqoonin. waxaan joojiyey shaqooyinkii aniga oo u ambabaxay si aan u soo barto diintaydii. sanad iyo 3 bilood ayaan Morocco ka maqnaa, waxaana soo laabtay anigoo faraxsan. farxadda macnaheedu runta ahna waa midaas. waxaan raadiyey wariyihii waraysiga ila yeeshay 12 sano ka hor ee i weydiiyey su'aasha ahayd, ma tahay qof faraxsan sida magacaaga ka muuqda? waxaan ku idhi, waxaad i weydiisay su'aal hadda ka hor. waxaan ku idhi, xarafka D ayaa iga dhiman ee markaan soo helo ayaan kuu soo sheegi doonaa. waan soo helay hadda, waan faraxsanahay, waana haystaa macnaha dhabta ee farxadda. haddii aad i weydiiso halkeed ka heshayna, waxaan ka helay diinta iyo dacwadda. allaha u naxariistay wuxuu ka soo bilaabay fanaan, muusigiiste, mu'alif, jilaa, wariye TV iyo idaacadeedba, ilaa uu soo gaaro sheekh daaci ah. magaciisa waxaa la dhahaa Saciid Al-Zayaani, oo isagoo intaasba raadinaya in uu helo farxadda. haddaba walaalayaal, farxadda lagu sheegayo waxay ku jirtaa diintaada waad si fiican u barato, iyo wixii uu Alle kuu abuurayna aad si fiican ugu soo baxdo.